Yo guys, waa idin salaamayn dhammaantiina boo meel walba caalamka joogtaan. Waa walaalkiini Amiin Xasan idin leh ku soo dhawaada mar kale iyo YouTube channelkayga. Haddaad ku cusub tahay waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saartid, aadan ka hilmaamin inaad daawatid gambaleelka saad ula socotid muuqaalada soo socda. maanta waxaan rabaa in la wadaago qiso yar aan meel ka soo maqlay. qisadaas aad ayay i cajab gelisay. waxaan rabaana idinka idinla wadaago qisadan. haddii idin cajab gelisona waxaan ka codsanayaa inaad la wadaagtid qofka aad jeceshahay amaba asxaabtaada, waayo waxaa leeyahay waxaad adiga aad jeclaatid la jeclaa walaalkaaga. marka aniga waan jeclaadayna waxaan jeclaaday inaan idinka in la wadaago. marka waxaa jiray macalin oo iskuul u dhigo arday ilmaha yar ayuu u dhigi jiray. markaas maalmaha ka mid wuxuu weydiiyey ardaydiisa qof qurxoon maxaad u taqaanaan amaba sidee u fahmi kartaan qofka inuu qurux badan yahay. hal arday ayaa soo kacay wuxuu dhahay macalin waxaan u aqaanaa qofka inuu qurux badan yahay waa inuu lahaadaa timo jilicsan amaba timo dhaadheer xoogaa. mid kale ayaa soo kacay wuxuu dhahay anigana waxaan u aqaanaa qofka inuu qurux badan yahay waa inuu lahaadaa indho waaweyn. mid kale ayaa soo kacay wuxuuna dhahay anigana waxaan u aqaanaa qofka inuu qurux badan yahay waa inuu lahaadaa joog amaba jirkiisu inuu dhisnaada. qof walba oo arday walba ra'yigooda ayay ka dhiibeen si u maleeyaan quruxda waxay tahay. macalinka ayaa wuxuu qabtay labo koob, mid waa dhalo midna waa qalinka. markaasoo dhahay labadan midkee qurxoon midkee baad qaadan laheedeen. markaas ardayda dhan waxay dhaheen koobkii oo dhalada ahaa, waayo dhaladu way qurxoon tahay. kaas ayay wada dhaheen dhammaantooda. markaas wuxuu soo qabtay labo dhalo yariis wuxuu dhahay dhaladan waxaa ku jirto sun, dhaladan waxaa ku jirto atar. markaas dhaladii sunta ku jirtay wuxuu ku shubay koobkii dhalada ahaa, midka kalena wuxuu ku shubay atarka ahaa galaaskii ama koobkii uu ahaa midka qalinka ahaa. markaas wuxuu dhahay ardaydiisa hadda midkee qaadan laheedeen. hadda dhammaantood waxay dhaheen macalin waxaa qaadanaynaa silfarka. markaasoo dhahay sababta u qaadanaysaan silfarka maxay tahay kanne way ugu dhafayseen haddaytan aad dhahdeen midka galaaska mise midda dhalada ayaad qaadanaysaan. waayo waxay dhaheen hadda sun ayaa ku jirto gudihiisa wax ku jiro waa naqaanaa, soo saa awgeed ayaan uga tagayna waxaan qaadanaynaa midka silfarka saa awgeed ayuu dhahay qofka bini'aadanka inuu qurxoon yahay jirkiisa faa'iido ma lahan hadduu gudihiisa uu ka xun yahay. saa awgeed qofka haddaad rabtid inaad qofka inaad ogaatid inuu fiican yahay ha ka fiirinin jirkiisa kor muuqaalkiisa hore, balse waxaa ka fiirisaa gudihiisa muxuu ka yahay. waayo hadduu gudihiisa wax ka qaldan yihiin amaba uu xun yahay qolofkiisa korena wax faa'iido soo kordhinayo ma lahan. hadda ka hor ayaa waxaa TikTok kusoo duubay erey oo saas camal u shabaha. dad ayaa weydiiyeen qofka inuu wanaagsan yahay sideen ku fahmi karaa. qofka wanaagsan waa sidii buugga qurxoon oo kale. buugga inuu qurxoon yahay in kale waxaad ogaa kartaa marka aad furtid aad akhrisatid gudihiisa wuxuu ku jiro aad ogaatid ayaad ogaan kartaa buugga inuu wanaagsan yahay ama in kale. sidoo kale qofkana bini'aadanka kama ogaan kartid muuqaalkiisa kor inuu fiican yahay in kale ilaa aad aad dhexgashid, aad la fadhiisatid, aad la sheekeysatid, aad waqti aad la qaadatid ayaad ogaan kartaa qofka inuu qurxoon yahay amaba in kale. muuqaalkayga hadduu ku cajab geliyeen waxaan ka codsanayaa inaad la wadaagtid asxaabtaada. inta aan ku wada kulmi doono muuqaalka loo sidan waxaa idinka tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.